الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, waxaan salaamayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare, waxaan salaamayaa dhammaan culamaa diinka, dhammaan ururada bulshada qaybahooda kala duwan. waad salaamantihiin. waxaan rabaa hor iyo horaan inaan shacbiga Soomaaliyeed u mahadceliyo sida oo ay u dhabar adeegeen, ay noogu sabreen inta arrimahan aan ka kala saarayno, ay noo soo dhabar adeegeen iyo muujinta taageerada ay muujiyeen in ay diyaar u yihiin inay taageeraan ku dhaqanka dastuurka, ku dhaqanka sharciga, ku dhaqanka iyo ilaalinta nidaamka dimuqraadiga ah ay taageersanayeen. sida inoo muujiyeen mahad gaar ay iga mudan yihiin dhammaan annagoo dhan xildhibaan ahaan mahad ay naga mudan yihiin. ilaahay jazadiina ha gudo. waxaan si gaar ah weliba ugu mahad celinayaa culamaa diinka oo inta masaajidada qur-aanka akrinaysay in dalkan ilaahay sida roon oo rabbi raalli uu ka yahay u baryaay inuu nawaafajiyo annagoo dhan dalkayna dhibaatada ku jirta ka baxda u daceynaya ayaamahan oo dhan. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaana jazadiina allah ha gudo, jazaakum allah khayr. laakiin yaan la joojinin ducada, sujuudda ha lagu duceeyo dalkan dhibaatada ilaahay ka saaro. muddo badan ay soo dhibtoodeen ummadan addoommada ilaahay ah, in ilaahay tawfiiq iyo barwaaqo iyo nabad iyo amni inay ilaahay u keeno. taa waa ku mahadsanta, ayaan idinku baraarujinayaa. jazadiisna allah idin sii gudaya insha allah. si kale waxaan kaloo gaar ahaan u mahad celinayaa guddigii oo aqalka sare oo guud ahaan iyo guddoomiyaha aqalka sareba inay noo soo magacaabeen guddi oo loo soo xilqaamay in ay xal u raadiyaan khilaafaadkan soo yaro dhexgalay, oo ay dadaal badan ayay muujiyeen. waxaan igana waxay ku ammaanan yihiin adkaysiga ay u adkaysteen iyo kadeedka la saaray iyo wax walba inay u adkaysteen, iyagoo ku dadaalayay in marxaladan lagu jiro si nabad ah lagu soo afjaro. ay ku dadaaleen, waa ku mahadsan yihiin. aad iyo aad baan markaa igana rabbi ugu tuugaynaa in jazadooda alla u gudo. aqalka sarena ammaan gaar ah ayaan ugu yeerinaya in tallaabadaasi iskooda ay isu soo xilqaameen, annagana aad aan usoo dhaweynay. mudanayaal, saad ka warqabtaanba ayaamahan waxaan la xarbinaynay in khilaafaad yaryar dhacay inaanu dejinno oo wixii sharciga waafaqsan iyo dastuurka uu odhanaya in la mariyo. annaga waxaan mar walba usoo taagannahay, aan ogolnahay in lagu dhaqmo dhaqanka oo noo yaala, shuruucda noo degsan, shareecada ha noqoto, dastuurka ha noqdo, dhaqan Soomaaliyeedka ha noqdo, odaytanimo ha noqoto, dhammaanba wixii oo dalkan khilaaf ka fogeynayo iyo qalalaaso ka fogeynayaba in ay markaa albaabkeeda la xiro ayaanu ka shaqaynayna. alxamdulilah, ilaa hadda waa fiicannahay. mahadaas ka bacdi waxaan jeclahay baarlamaanka federaalka labadiisa aqal waxaa weeyaan keedhayaha gobonnimada Soomaaliyeed, ilaaliyaha saraynta sharciga iyo amniga iyo hantida dowladda markaan leeyahay waa hantida shacbiga. annaga waxaan nahay qowsaaro, sida inka geel jira iyo loo jira iyo ari jira u dhaxdaa. annagana waxaan jirnaa qaran jiraan nahay. qarankaasi dadkaasi dantiisi ayaan ilaalinaa. marka addimana waxaa noo ah xukuumad baan dhisnaa oo aan barnaamijkeeda ansixinaa, oo xoolaha shacbiga khasnada guud ku jira ayaan miisaaneed uga ansixinaa si barnaamijka aan ansixinaa ay u fuliyaan. waa addimaha baarlamaanka oo arrimaha lagu fuliyo waa baarlamaanka. 3 hay-adood weeyaan. waa hay-adan oo sharci dejinta ama xeer dejinta la yidhahdo oo baarlamaanka labadiisa aqal ah. waa laanta fulinta oo xukuumadda ka kooban, madaxweyne ilaa magaciisi ilaa xukuumadda ah haddii alla ku roon yahay, iyo laanta sharci dejinta. madaxweynahana waa udub dhexaadka u dhexeeya 3 laamood. midoodna looma baahno marka midda kale inay faragelin ku samayso. ogaalkayga golaha shacabka wax faragelin ah ay ku samaysay xukuumadda intii ay soo jirtay ma jiraan. haddii alla ku roon yahay wax ayaga ay keeneen ama ra'yi ay soo jeediyeen ama sharci ay keeneen ama arrimo masiiri ay soo jeediyeen oo laga diiday ma jirto. in la totoosiin mooyaane wax laga diiday ma jirto ilaa maantadan sida aan kusoo wadnay. dalkan meel fog baa laga keenay.
meel fog aad u fog oo aad dadka kusoo dhibtoodeen in badan u geeriyootay laga yimid burbur buu galay dowladnimadii aad duduntay dadkii xataa rajabeel ayaa ku dhacay 2012 markii annaka aan la wareegnay barlamaankii sagaalaad markuu dhismay waxaa ilaahayna waafajiyay oo nagu garab galay oo dad xildhibaano badan u soo dhabar adeegeen waxaan soo gaarsinay nidaam dimuqraadi ah oo si hufan daahfuran lagu kala baxay waxa la wixii oo mashaakil ay yimaado waxaan muujinay in Soomaaliya barlamaan ay leedahay barlamaankeeda inuu xallin karo mushkilad kasto timaado ayadoo aan banaankana loo aadin shisheeyana soo faragala intaas shacbigu markhaati ku yahay markii ugu dambeysay 2012 ilaa yoomana hada inta aan hoggaankaas hayay waxaan si nadiif ah oo daahfuran oo aan khilaaf dhicin aan ku soo kala wareejinay 3 madaxweyne ayaa isku soo gudbay markii ugu dambeysay madaxweynaha hadda xilka haya aan magaciisi aan martaa ku soo dooranay ayadoo 3 madaxweyne gacanta is haysatan oo labada qoslay caalamka dhanna ay markhaati ka ahaayeen ayaa soo gudbinay meelaha la soo gaaray iyo xataa ra'iisul wasaariyaalkii isbedelay oo dhan yani waa laga dooday waa laga murmaay kulligood waxaan ku soo dhameynay si daahfuran oo magaciisi si oo marta xilkasnimo ah looga dooday ka bacdina go'aan laga gaaray soo gudbinay marka arrimahaas la gaaray oo dimuqraadiyada ah waa kanzi waa dhaqan kanzi ah oo ay Soomaaliya yeelatay lixdanaadkii wixii lagu dhaqmaayay oo marta awooyaasheen oo soo dejiyay dimuqraadiyada saatir soo dejiyeen ayaan soo celinay shacbiga rajo weyn baa ay soo gashay dalka waxa u bilowday in uu marta hab dimuqraadi dhaqan nadiif ah lagu socdo ayaa soo gaarsiinay alxamdulillah taasina ma hadaas Allah leh shacbiga leh xildhibaanadii ka soo shaqeeyay ay soo wakiisheen ayaa ayagana amaanteeda mudan hadda in maragta barlamaanku saata idin sheegay waxa weeyaan waa hooyada dhalaysa dhamaan laanta fulinta madaxweyne waxa soo garsoore kudiye madax banaan meesha ay ka soo baxaan ay ka soo burqadaan way markii la fadhiyo barlamaanka 275 fadhida ee golaha shacabka looma arkay 275 waa shacbigii Soomaaliyeed oo fadhiyo oo doodaya ay la dhigantay xildhibaan kastaba codkiisa wuxuu ku fadhiyaa 50,000 ilaa wax ka badan qofood adii inta tirada guud ee shacbiga Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo qeybshay 275 ayuu leeyahay agabka la siiyay oo wax ku ilaaliyo waxa ugu weyn waxa weeye soo jeedin inuu sameeyo soo jeedin wuxuu sameynayaa markii tuhum galo idinka mooshin u taqaana waa soo jeedin markii xildhibaanka tuhum galo dadkii uu xilku u dhiibtay u doortay oo tuhum ka galo ayaa uu soo jeediyaa oo leeyahay war hiblow waxaan moodayaa in waxa tuhun iga galin arrimahaasi aad u gaftay markaas soo jeedin buu keenayaa mooshinka micnihiisu waxa waaye ka tuhum bixid waxyaabaha xildhibaanka uu shakiyay markuu ka doodo oo nadiifsado markaas uu ogaanayaa in marta qofkaas xilkiisa uu ku gudbay oo ka xad gudbay iyo inuu si war u sameeyo saadaradeed mooshin waa la keeni karaa xildhibaanka iska leh waa agab dastuuri ah oo asaga la siiyay oo wax ku toosiyo ama ku tuhum baxo hase yeeshee marka oo qaanuun dejiyaha oo arrimahaas oo kale oo magaciisa culus uu sameynayo marsan haddii madaxweyne oo xilka ka dego ama uu xilkiisa bisabab ma u gudan waayo 30 beri buu qorayaa taa waxa loo sameynayaa 30 beri wuxuu u yiri waxa weyn dalkii uusan u fariisanin gudoomiye markii xilka tuhun laga keeno 10 beri gudahood in lagu dhameeyo weeyaan haddii marka tuhunkii lagu helo uu ka degana 15 beri gudahood in mid kale cusub lagu doorto waxa loo xadiday waxa weeyaan howlaha idanaha inaysan xakanin ra'iisul wasaare haddii laga keeno mooshin asagana 5 beri in lagu dhameeyo ayay arrintu tahay waxa soo dhan xadidaada loo sameynayo waxa weeyaan in howlaha dalka ayna xayirmin ama lagu ciyaarin ama meeshii laga sii wado ayaa looga golleeyahay hase yeeshee waxa loo baahay si asluub leh sharciga waafaqsan dastuurka waafaqsan mar walba si xilkasnimo ah looga baxo oo laga maarmaan saadaradeed wili ma dhicin Soomaali taariikhdeeda in golaha shaqira lahaad wili ma dhicin Soomaaliya taariikhdeeda inta aan ka warhayo in baarlamaanka ama xarunta golaha shacbiga xurmadii uu lahaa ciidan la duldhigo arrintaas arrin hore u dhacday ma aha arrimaha noocaas oo kale haday dhacaana waa saansaan oo aad khatar u ah oo dareen dad gelin karta in afgambi loola daba jeedo saadaradeed ma qurux badna in marta xurmada aqalkaasi lagu talax tago
ma qumana sharcina ma aha amniga oo xaruntaasi xilkeeda wuxuu saaran yahay guddoonka ayaa amar ka bixiya oo guddoonka ayaa tababara ama tababaradooda hubsada in ay markaa xasaanada iyo xurmada ay kala yaqaanaan meesha ku kala geli karo meeshaan la geli karin taasna waxaa loo yeelay in xildhibaanka aan la afjigi karin oo la hadlaayo inuu si sugan ra'yigiisa u jeedsado ayaa looga dalleeyahay hase yeeshee arrinta hadda lagu kacay ma qurux badna haddii taas la galan waxaa weeyaan marka waxay keeni kartaa arrimo kasii culus oo shacbiga inay difaacdaan ay noqon kartaa inay waxyaalo kale ku kacaan ay suurtoobi karta xasilooni daro badana ka iman karta arrimahaasi marka waxaan uga digayaa laanta fulinta annaka kuma soo faragelinin hana faragelinin naga dulqaad ciidamada meesha aad soo dhigtay usoo celi ciidamadii u tababarnaa si amniga iyo arrimaha dhan ay u sugnaadaan xildhibaanada waxaan xusuusinayaa inay maragtaa xogaa biyaysa xildhibaanada waxaan xusuusinayaa inaan dhaar soo marnay oo xilkan laga rabo inaan gudano ay tahay inaan ilaalino diinta iyo danta guud danta guud ee haddii la ku rooyahay danta guud ee dalka saa daraaddeed ama magaciisi xildhibaan oo wasiir ahaw ama xildhibaan caadi ahaw ama xildhibaan xil u hayo golaha ahaw waxaan ku xasuusinayaa in markaad xilkaaga gudanayso inaad u gudato si xilkasnimo leh daacad leh alla ka cabsi leh aad u gudato ayaan rajaynayaa ama mooshin wada ahaw ama ha ahaanin qof ka soo horjeeda ahaw ama kan wata ahaw waxaan ku leeyahay xildhibaan damiirkaaga la tasho damiirkaaga ka tasho oo alla ka cabso burburinta baarlamaanka dan uguma jirto shacbiga dan uguma jirto meesha aan soo gaarnay dan uguma jirto guud ahaan magaciisa gobonnimada soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib usoo dhisno waa fududahay wax dudumis laakiin waa adag tahay wax dhisid waxa aan ku jirno waa wax dhisid waa dhib badan tahay hal qof ayaa ku filan inuu wax dudumiyo 1000 qof oo wax dhisaysa waxaa la haddii hal qof oo duduminayo oo ka dambeeyo waa ka adag yahay marka dudumiska waa arrin aan martaa maanta shacbiga loo quurin waayo xukuumadda ra'iisul wasaaraha waa qof fiican waa shaqo yaqaan waa yani markii uu talada baarlamaanka qaatana waa shaqooyin fiican buu gudbiyaa hase yeeshee ayaamahan dambe waxaad moodaa inuu ka tala qaato injineeradii kusoo takhasusay burburinta baarlamaankii 8aad ayaa ayaamahan la taliyaa waxaan kula talinayaa inuu ka fogaado arrimahaasi dadkaasina warkooda uusan maqlin golaha la tasho golaha ayaa maalin dhoweyta ku saaray xil annaka mooshinka ma aanan wadin meel cidla ah laga baydaadsiiyey min fadlak wixsaanak yani kusoo noqo ilaalinta sharciga dastuurka iyo xilka aan ku saaranay in maragta inaan kugula xisaabtano xaq baan u leenahay axad kastaba aday ku bannaan tahay inaad timaado ama wasiiradaada yimaadaan la soo xiriir haddii la yidhaahdo baarlamaankaaga waxaan hadda la wadana dhulka dhig xaajada ciidamada qalabka sida iyo ilaalada amniga waxaan u sheegayaa in dastuurka uu farayo in ay ilaaliyaan midnimada iyo amniga soomaaliyeed dalka iyo ummadda iyo dadweynaha oo dhanba wuxuu dastuurka farayaa inaysan ku milmin siyaasadda iyo qaybo siyaasadeed saa daraaddeed inaan lagu tusin xildhibaankan saas waa xildhibaankan fulaan waaye shaqo kuma lihin xildhibaan waaye xasaanad buu leeyahay ixtiraamkiisuu leeyahay dastuurka u damaana qaaday adigana waxaad qoriga u hayso oo meesha ilaalada ugu dhiibi waxaa weeyaan islaantaas oo shaaha ku gadayso jidka iyo xildhibaanka kulligooda inaad amnigooda ilaalisaan lagu diray amar qalad ah inaad fuliso waxaad daw u leedahay inaad iska diido waxaan dalka u rooneen waxaad daw u leedahay dastuurka ku damaana qaaday in aadan fulinin xataa haddii lagugu dilaayo taasaa lagu qaatay rabbigaaga agtiisa jazadiisa ay ku jirtaa marka min axsaanak wa fadlak baarlamaanka wuxuu ku mashquulsan yahay sida adiga xaqaada u heli lahayd waxaa maqulsanahay qofka geeriyooda xaqiisa sida loo heli lahaa duugtiisa loo heli lahaa agoonta uu ka tagay sida armalada uu ka tagay inaan magaciisii samayno ayaa loo baahaya mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay qof walba haddii la ku roon yahay magaciisii hawshiisii xilka loo horsaaray dastuurka la ilaasho annaka waxaan usoo taagannahay ku dhaqanka dastuurka ku dhaqanka haddii la ku roon shuruucda dalka u taala iyo cidna ayna ka sarayn karin sharciga ayaan usoo taagannahay
oo waxaanu nahay kayd hayayaashii gobonnimada soomaaliyeed iyo badqabka dalka soomaaliyeed inaan u adeegsanaano ayaan u fadhinaa. burburka ha laga ilaasho baarlamaanka, burburka ha laga ilaasho baarlamaanka. xildhibaan baarlamaankaasi adiga iska malihid shacbigaa ku wakiishay. min fadlak wixsaanak damiirkaaga la tasho, alla ka cabso, ilaali midnimada soomaaliyeed. wactasimuu bixabli illaahi jamiica, xusuusnow. taasi waxa weeyaan arrin aan ciidan hoosta ka xariiqayo. arrinta kale oo hadda oo maanta aan bismillah waxaa marxaladaha badan uu soo maray mooshinkan oo kalsooni kala noqoshada tuhumka kalsooni kala noqoshada oo ay xildhibaanada soo jeediyeen. dow bay u leeyihiin, xaq bay u leeyihiin. hase yeeshee marxalado badan uu soo maray. tanaasul badan ayaanu samaynay. wax kastoona lagu yimid waa ka tanaasulnay. sharci darro kulli waa kasoo tanaasulnay annakoo xigsanayna markaysa nidaamka oo in la dhowro nidaamka, in xasiloonida ay jirto, xasilooni siyaasadeed inay jirto, iyo annakoo ka fogaanayno arbushaad iyo qalabaaso iyo wareer kale in dalka la geliyo ama howlaha dalka ay xayirmaan. annakoo ka fogaanayno ayaan u ogolaanay wax walbo oo guddiga aqalka sare noo usoo xilsaaray noo yimid. dhowr qodob bay la yimaadeen. badankooda waxay ahaayeen kuwa waafaqsan dastuurka, kuwa waafaqsan xeer hoosaadka, iyo kuwa kale oo sulux ku saabsan ayay ahaayeen. dhammaan qodobadaasi waanu ogolaanay. hase yeeshee dhinacii kale oo ay xukuumadda dabada ka waday ayaa laga waayay inay maaragta arrimaha sameeyaan. hadda iyo dan shalito xildhibaano aada u fara badan oo 100 dhaafay ayaa waxay soo saareen baaq oranaya arrintaasi. markii aan sharciga fiirinay, dastuurkii fiirinay, xeer hoosaadkii fiirinay, talooyinkii aqalka sare fiirinay, in mooshinkaasi uu buray. muddadii loo qabtayna uu dhammaaday. hawshana caadi ay kusoo noqoto. dalkiina howlihiisa loo kala diro, wasiirna xafiiskiisa uu aado, xildhibaanna golihiisa uu aado, dhammaan howlwadeenadana meeshooda ay kasii wadaan, ummadana nolosheeda ay u kala socoto ayaa go-aan ay ku gaareen. aniguna go-aankaas ay soo jeediyeen, baaqaas ay soo jeediyeen ogolaaday. laga bilaabo maanta 29 bisha maarso waxaan dib ugu soo noqday hogaankii guddoonka golaha shacabka ayaan rasmi ahaan ugu soo noqday. saa daraaddeed laga bilaabo sabtidana waxaan bilaabaynaa howlaheena caadiga ah. waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada inay ogolaadaan ku dhaqankaas sharcigaas iyo soo jeedintaas xildhibaanada badan ay soo jeediyeen. aniguna taasaan ku hogaamin doonaa haddii aan la yidhaahdo. rasmi ahaan golahaasi laga bilaabo maanta anaa dib ugu soo noqday. markii horeba waxay ahayd waxa iga reebanaa keliya wuxuu ahaa inaan shir guddoomiyo mooshinka mooyaane wax kaloo iga reebanaa ma jirin qaanuuniyan. inkastoo dadka qaarkii si kale ay u fasirteen oo insha allah ilaaha soo hanuuniyo. ayagana waxaan alla ugu baryaynaa inay maragtaa fahmadarada alla ka bixiyo ayaan alla ugu baryaynaa. ugu dambayntii annaga guddoon ahaan iyo xildhibaan ahaan waxaan diyaar u nahay wax walbo sulx ah, wax walbo sharci ah, wax walbo haddii alla ku roon yahay ummadani ka dhowraayo, qalalaaso ka dhowraayo iyo magaciisi rabshado kale. diyaara u nahay martaa in laga fogaado, sulux la sameeyo, al-islaax bayna annaas in la sameeyo waa diyaara u nahay. saa waxaan uga jeedaa, waxaan cod dheer ku wacayaa, magaca xildhibaanada ugu wacayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed in arrintani haddii inta yar ka dhiman uu usoo dhexgalo oo haddii aan laku horan yahay codkiisana maqashiyo in dastuurka lagu dhaqmaayo iyo hadduu asaga akhyaarnimo ugu hagooganayo, haddii sulux uu samaynayo in arrintaani la joojiyo. rabshad dambe kale ayna dhicin oo fadqalaal ayna dhicin ayaan ka codsanayaa asna inuu maragtaa nagu hogaamiyo arrimaha intaysan faraha ka bixin. meel fiican aan soo gaarsiinay oo hadda oo nabad lagu keenayo. cid mooshin laga wado ma jirto maanta aniga ogaalkayga. wax oo mooshin ah haddana ayaamaha ma soo socdo, laakiin howlihii aan u baahannahay 2018 qorshe dheer oo aada u dheer oo 3 sannadood soo socota loogu shaqaynayo ayaa shantii bisha December u ansixiyay golaha shacabka oo la rabay sanadkan in xoogga la saaro shuruucdaasi iyo nidaamyadaasi la hirgeliyo. ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka, ay ka mid yihiin arrimihii doorashooyinka 2020, ay ka mid yihiin hab raaci oo lagu hagaajin lahaa garsoorka iyo arrimo badan oo ka mid ah jinsiyadda magaalo madaxda Muqdisho. waa badan yihiin arrimaha oo muhiimka ah
oo u abbaaran dib u dhiska dowladnimada maaha shuruudan kale waa wadaynaa mushkilad maaha laakiin annaga waxa aan raadinayna waxaa weeye arrimaha dib martaa oo dib u istaajinta sugidda yani buddhigii loogu dhigi lahaa dowladnimada lagu dhisaayay shuruucda dhisaysa ayaan rabnaa in naloo keeno aan dareerino 2018 inaan socodsiinaan rabnaa marka saa daraadeed mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inta yaroo harsan in maaragtaa aad adiga kusoo hagoogato oo aad maaragtaa nabad iyo magaciisi nabad iyo haddii aan lagu rooyahay xasilooni siyaasadeed arrinta aan ku dhamayno ugu dambeyntii dhammaan xildhibaanada golaha shacabka waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan amniga guud inay ilaaliyaan amnigooda inay xasiloonida ilaaliyaan golahooda shacbigana ilaashadaan wabillahi tawfiiq